waxaan leeyahay oo aan si gabashalahayn u leeyahay ilhaan walaal qaali gabar Soomaaliyeed sharaf iyo ciise iyo milga leh waxaan ku leeyahay iga raali noqo ilhaan ma mutaysanina maryaha la xirto baadila mid baan leeyahay hablaha afkaygu ma kara xumaan waa muxiba maam hooyaday macaantii aan qabiyo walaashay muunad wacan gabdhaha Soomaaliyeed. السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مدنياشي مروين كمرت شرف كماموس كبدر وديار قرو مقال عصب مقال كنا عصب وحا وكوسا بسنية هاي سيداد لسعوتين وحا مدوين في وقودن بأذيم اللو جيدين اي قدر وصومالي انتوضا بدن اي ودا قران ايان اسلام مركانا لقو ايدي انو يساقو دفاعو ياهي اما الدفاع يا ابو كرمادي taa waxaa dheereed in qadar lagu eedeynayay in uu u gafay qaar ka mid ah hablaha Soomaaliyeed qaasatan ilhaan xarago iyo dad kale oo ay ku jiraan muno iyo gabdho kale waxa la sheegay in qadar uu isagu afayeen u noqday Abuukar Mahdi waa iyagu sidii hadalka u dhigeen arimahaas iyo kuwa kale ayaan haatan ka hadli doonaa haddii alla weyne laga helo saxaaf channel ayaad kala socotaan saxaafnu idila socodsiinaya u diyaar garow iyadoo dhammaystiran Zombie Apocalypse. tan iyo markii Soomaalidu idil eedeemo u jeediyeen qadar isla markaana ay ku eedeeyeen in uu gofay ilhaan xarago iyo dad kale ayaa waxa ay soo tarayay niyad ahaan iyo waliba muuqaalada uu baahinayo sida uu kaga xun yahay arrinkaas sidoo kale waxa jirtay fahiimo oo mar un iyagu la isku xaglin jiray iyaduna inta ay soo fariisatay ay u soo jeedisay in qadar uu sameeyo qodobo iyada u sheegtay qodobada waxa kamid ahaa in haddii dhibaato ay haysato quraan saar uu baahan yahay taasoo aan u arki karno in ay ula jeeday inuu isagu sixir hayaba oo sixir lagu haysto iyaga siday hadalku dhigto anigu ma dhihin intaa kadib markii ay dhacday in ummadda Soomaaliyeed dhan commentiyada ay u galeen qadar oo ay kala hadleen arrimahaasi oo idil waxaa dhacday in qadar maanta ugu dambeyntii uu sameeyay tilaabo uu sameyn lahaa qofka ugu sharafta badan Soomaalida hadda waxaan rabaa in aan isla daawano qadar muxuu sameeyay ma mar kale ayuu soo caay ilhaan xarago iyo gabdhaha Soomaaliyeed mise wax kale ayuu sameeyay waxaan wada daawanaynaa haddii alla weyne laga helo muuqaal uu soo duubay qadar uu arimahani oo idil uu isagu kaga hadlayo bal muuqaalka ayaan bilaabanaynaa haatan idinkuna diyaar marbay tala maagantaa tusaaluhu muran galaa maryuhu kugu soo dhagaan adoon maalin ruux dayicin maangaab dadka kuu tusaa munaafiq inaad taho hablaha maagooda jecel ileen hadal waa margiya masale aan meel u waday intay ka maquuniyaan minjaxun kala maahiyaan macrifadaydiiyo gobtii ku dhahaan waa mudaljaan mar qura la dagaalo oo maaseejo u qora baadila mid baan leeyahay hablaha afkaygu ma kara xumaan waa muxiba maam hooyaday macaantii aan qabiyo walaashay muunad wacan gabdhaha Soomaaliyeed ma ahi ruux mudan dafira ma ahi ruux mudan dafira maariya ruux ay u qora milyuun ku bahdila orah ilhaan ma mutaysanina maryaha la xirto baadila caku yamaankay ma gelin maantana bari baan ka ahay markii aan soo qalday hablow imasaabaxo cimaamada iga mulkiya idiga sharaf mudan ilaa habluhu waa wada macaan milkiya sharaf bay gayaan maamuus bay leeyihiin allahna ku makinay wanaag macaankoodan dunida intaa kala muudsanaa misbaax bay noo yihiin muuqoodaan ku doogsanaa man iyo waa ubax xarfee mawlow noo daa haween la'aantood waa mugdi waa runta aamin la'aantoodu waa mugdi sidaad adigu u sheegtay waxayna wax ereyada maqlayseen oo idil ay raaligelin u ahayd ama ku socotay ilhaan xarago iyo gabdhaha kale oo maalmihii ugu dambeeyay la aaminsanaa in qadar uu ku gafay dadku waxa uu dareemay qadar in intaa aanay ku filneen dadka qaarkiis ereyadu aanay fahmin bal muxuu raacinayaa haddii dadku qaarkiis ereyada aanan fahmin Soomaalidu waxay taqaanaa wax si toos loo sheego waxaan si karti geesinimo
iyo hanaan ku dheehan tahay aan halkan u soo fariista in aan ku raali geliyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan gabdhaha Soomaaliyeed ay ugu horeyso walaasha Ilhaan Xarago oo si khaldan wax magaratadu ay u fasireen su'aal ani ayadana dhex martay waxaan leeyahay oo aan si gabasharahan u leeyahay Ilhaan walaal qaali gabar Soomaaliyeed sharaf iyo ciise iyo milga leh waxaan ku leeyahay iga raali noqo si bareer ah ayaana kaaga codsanayaa raaligelintaas waayo jaanisyo badan baan waxaan siiyey sida aan dareemayo dad wax magarata ah oo yaam ah dawacooyin ah mana doonayo in ay jaanis kale igu sii helaan sidaasi la mid ah waayahay qadar wuxuu raaligelin si toos oo bareer u raaligeliyey Ilhaan Xarago hadalkiisase waxaa ku jiray in weli uu isagu wax uu tabayo ama uu rabo inuu weli la xifaaltamo ragga kale ee barnaamijkan uu qoseeyo ama ku jira waxa uu leeyahay wixii ani adina dhaxmaray wuxuu jaanis siiyey dad wax magarata sida asaga uu dhiga hadalka dabcan waxaan filayaa in dad kale uu fariin u dirayo laakiin tii hablaha Soomaaliya oo dhan way ka qabtaa muxuu raacanayaa qaali waxaan ku leeyahay iga raali noqo dhammaan ummadda Soomaaliyeedna waxaan leeyahay hal iga raali ahaado cafis baan idinka dalbanaya si cad oo bareer ah waxaa sharaf ii ah karaamo ii ah wanaag ii ah in aan malaayiin kumanaan Soomaaliyeed hortood aan cafis ku hor dalbanayo in si qaldan hadal loo fasiray colaadna la dhex dhigay aniga iyo walaashay Ilhaan ma doonayo inay sii socoto mana doonayo in khaladkii la igu arkayay ee aniga la ii fasiray ay dad si khaldan ula jeensadeen inuu halkaa ka sii socdo ma doonayo waayahay sida muuqato waxaad u jeedaan qadar weli ma khirsana in uu ku gafay Ilhaan saas ay tahay wuxuu leeyahay hadalkaygu waa la fasiray dad kale ayaa Ilhaan si khaldan wax uga sheegay however si walba ay tahay raaligelin ayuu bixinaya marka ma fiirinayno waxa uu leeyahay oo ah in hadalkiisa la fasiray laakiin waxaan fiirinaynaa raaligelinta uu bixinayo oo kaliya cafis balaaran baana ka codsanayaa walaashay Ilhaan oo ayada aan si gaar ah aan u abaaray iyo meesha ay ka bilaabatay arrintan iyo buuqan hadda ina hareeyay gaar ahaan aniga u aadan dhammaan gabdhaha Soomaaliyeed waxaan leeyahay iga raali ahaada dhammaantiin sida quruxda badan ee aad ii waaniseenna waan qaat qof kasta oo waxay ka tirsanaa waxaan leeyahay cafi aliya masaabax adiguna walaaliiso cafi ragga intaa ii haardan wixii kale intaas anaa la xisaabtamaya laakiin codsigaas iyo cafiskaas waxaan weydiisanayaa walaashay Ilhaan iyo walaashay Muno labadaba waan weydiisanayaa oo waxna dhex maray wuxuu yiri ragga anaa la xisaabtamaya laakiin waxaan cafis weydiisanayaa si bareer u weydiisanayo waa Ilhaan iyo Muno bal waxaa jirta in muuqaalkan gudihiisa uu ku soo qaadan doono Fahima oo iyaduna fariin u soo dirtay aan wada daawano muuqaalka weliba aan ka xumahay inay ilaa halkaas la gaadho waxaan sidoo kale cafiska u codsanayaa oo aan mar laba kusoo celinayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed wixii aad igula taliseen waa qaatay gaar ahaan waxaan hadalkeeda si saxa oo karti iyo gobannimo leh aan u qaatay Fahima Saciid Yuusuf walaashay qaali ah waxaan ku leeyahay hadalkaaga mugta weynaa qiimaha lahaa sharafta lahaa wanaagga badnaa ee aad ii soo jeedisay iyo taladaadii waan qaatay waana ku mahadsantay waan ogolahay waana ku faraxsanahay in ay ila taliso qofkii noloshayda qaaliga ku ahaa mana ka gabanayo hadalkeeda inaan qaatana anay sharaf ii tahay idinkay sharaf bal si aad la socotaan waxaa jirtay ma raba inaan gudaha usii galgalo laakiin in labadooda laysku xaglin jiray walow xaaladdu haatan ay ka duwan tahay haddana waa nin karmeed oo wuxuu leeyahay qofkii nolosheeda qaaliga ku ahayd talada ay ii soo jeedisay inaan qaato ma ka gambanayo rag dhaafay idin tahay ragga Soomaaliyeed bay sharaf u tahay madaxaygu marraba kor ma ahaanayo haddii aysan gabar Soomaaliyeed wanaag iga tirsanayn
madaxaygu marnaba qiimo ma yeelanayo haddii ay hooyo soomaaliyeed ii caraysan tahay. si kasta oo xaal ahaa, si kasta oo aan rag isaga celinayay, si kasta oo aan ugu madax adeegayay wixii khalad ah oo aan qaatay dhulkaan dhigay, waxaana idin leeyahay gabar soomaaliyeed la-aanteed waa abaare, raalaha layga ahaado. sharaf iyo ciise ku noolow Fahiimo, aad baana kuu jeclahay, aad baana waxaa weye kartidaada iyo geesnimaada u qiraya. horeyna waa u ogaa, haddana waan ogaa inaad tahay geesiyad, inaad tahay qof karti badan, in aad tahay qof wanaagga jecel. waxaa tahay gabar aad u sharaf badan, gabar qiimo badan oo ilaahay uuna ka dhaliyey. marnaba hoos kuu dhiigi maayo, marnaba ku liidi maayo. mar walba sida aad shalay ahayd oo aad iigu ahayd boqoradii haweenka baad maantana igu tahay. marka ma rabin inaan galo, laakiin isagaa hadalka keenayba. wuxuu leeyahay sidaad shalay boqoradeeda u ahayd ayaan ilaa haatan boqoradeeda u tahay, aad baana kuu jeclahay, kuma liidayo, hadalkaaga waan qaadanayaa. war nin karmeed waa nin dhaafe, ninku waa nin dhaafe. way fiican tahay in mar haddii sheekada dumar ay soo galaanba in bahasha la tanasulo, madaxa dhulka la dhigo, waa lagu qasban yahay. marka waxaan jeclaa inaan sii wado sheekadan, laakiin intaan ayaan ku ekeynayaa. haddiiba mar qadar uu madaxiisa dhulka geeyey oo uu caddeeyey in uu isagu qaladka lahaa, wax walbana qaatay, waxawaaye waxaan leeyahay bes ujeedeen qadar raaligelin buuxda ayuu bixiyey, oo waxa uu raaligeliyey Ilhaan iyo Muno. waxa uuna caddeeyey in uu qaatay talada gacalisidiisii hore Fahiima, waa uu caddeeyey. waxaan ku taageerayaa qadar in uu ixtiraam siiyey dumarka, inuu ixtiraam siiyey qof noloshiisa kasoo ay isla soo mareen wax yar oo xitaa wanaag. muhiimaddu ma ahan dee qofki inaad wada noolaataan weligiina oo wax dhibaata idin dhex marin. qofkii wanaag yar xitaa idin dhex maro oo aad soo wada noolaateen, qiimuu noloshaada iyo sharafta ba ku leeyahay. marka waxaan qadar ku taageerayaa in uu si aada khiiro badan uga hadlay arrinta Fahiima. marka laga soo tago waxa raaligelinta uu siiyey Ilhaan iyo Muno. qaybaha dambese waxa uu bilaabay rag iska celis saaxiibkee. waxa uu soo qaatay hadal ay tiri Fahiima oo ahaa macnaa wax ay ku tilmaamtay qaldan, oo ahaa in uu qofkan qof wax qabsan karin uu yahay, qof lacag rabo uu yahay, wax noocaas. jawaab cad ayuuna ka bixiyey, laakiin hadalladiisii horoo dhan waxa uu yahay kuwa madaxa korkeeda uu ku saartay dumarka. haddaba arrinta haatan taagan ee qasan, waxaan ka dalbanayaa dad walba oo dhiig damiir uu ku jiro soomaalinimo in marka hore arrimaha dumarka la xaliyo, arrimaha dumarka Soomaaliyeed la xaliyo. dadka dumarka usoo jawaabayo talooyin loo jeediyo. dumarka haddii ay dhibaato arkaan ama qalad arkaan way iska hadlaan, way iska caytamaan, waxoo doonaan ayay sameeyaan. laakiin muhiimaddu ma ahan in nin rag inta uu soo fariisto uu jawaab siiyo ama hadal qalad uu ku yiraaho gabar dumar ah. sababtoo ah waad la socotiin boqolkiiba 99 dumarku way samraan. halkii jeer oo ay xanaaqaan, haddii aad ka daba xanaaqdo waxaad burinaysaa 99kii jeer oo ay dumarka kuusoo samreen ayaad burinaysaa. way ku dhashay, way kula dhalatay, waad dhali doontaa, waad u dhaxday. intaa oo dhan haddii aadan niyadda ku hayn, dee damiir xumo iyo raganimada iyo soomaalinimada ayaad meel uga dhacaysaa. waxaan rabaa halkan inaan ugu mahad celiyo walaalkay qadar. waxaan leeyahay waxaad samaysay arrin geesinimo leh, waxaad samaysay arrin ay loo baahan yahay in ragga kale oo dhan ay adiga kaaga daydaan, khaasatan kuwa dumarka ay haatan ishayaan, ama kuwa dumarka usoo jawaabayo, ama kuwa dumarka ay wax ka tabanayaan, in dhammaantood ay tan oo kale sameeyaan. cid walba oo dumarku ay wax ka tabanayaanna tabashada dumarka la xaliyo. marka hore intaan gar kale la galinba tabashada dumarka la xaliyo. haddii dumarka qalad laga galay iyagu la raaligeliyo, haddii ay qaldan yihiin wax loo soco oo loo sheego. intaa ayaan mudannahay ama nolaga baahan yahay inaan sameyno haddii aan rag nahay. haddii kale waxaan noqonaynaa sida dumarkii oo kale. marka si aysan taas u dhicin, waxaan kula dardaarmayaa cid walba oo caqli u saaxiiba oo wax dareemaysa
in ay tallaabada uu qaatay qadar oo kale mid la mid ay qaataan. muhiimaddu maahan in haddii aad dumar raaligeliso colaada qadarkaa la dhexaysay in aad adigu qadar raalli ah u dhahday maaha. dumarkii ayaad meesha ka saartay, kadib raggiina isku soo haray, idinka idin taalaa. walow aan jeclahay ama aan rajaynayo raggi xitaa in si soomaalinimo ay wax ku xalliyaan, haddana waxaa loo baahan yahay dumarka in qiimo gooni ah la siiyo. mar kale iyo mar kale haddii aan ragga Soomaaliyeed nahay, waxaan dhammaanteen wada leenahay Ilhaan iyo Muno iyo cid walba oo wax tabanaysa raalli ahaada. waxaan rajaynayaa inaad ku qanacdaan raaligelintii uu qadar bixiyey. Fahim, adiguna walaashay waad ku mahadsantahay maadaama aad dhiirigelisay kiiskaagii hore. haatanse walaalka ah oo si walaalnimo ah ku jecel, adiguna waan kaaga mahad celinaynaa. qaladkii dhacay qof walba ha ka raalli noqdo dhanka dumarka, ragguna miiska wada hadalka ha fariistaan. intaa ayaan kusoo koobayaa barnaamijkan xiisaha badnaa aan kaga hadlayay raaligelintii walaalkii qadar uu bixiyey iyo Ilhaan Xarago iyo Muna iyo hadalka qiimaha badnaa ay ku hadashay Fahima. waxaan rajaynayaa Ilhaan Xarago inay ismuujin doonto oo caddeyn doonto in iyaduna ay aqbashay raaligelintii uu qadar usoo jeediyey. dibadda ilmid lacayn barnaamijkan oo kale ugu kulmi doono, waxaan idinkaga tagayaa samsamay salaamo idinna waad ku mahadsantihiin daawashada barnaamijkan. Zombie Apocalypse.